wadamada hubka nuclear-ka ku hubaysan ayaa kordhiyay tirada madaxyada ay haystaan iyo awoodda hubkooda. hay-ado badan oo adduunka oo arrintan ka shaqeeya ayaa ka digaya khatarta ka dhalan karta hubkan wax baabi'iya ee sii kordhaya. kharashka dowladuhu ku bixiyeen hubka nuclear-ka ayaa aad u kordhay sanadkii 2023 iyo sanadkan hadda aynu ku jirro ee 2024. sagaalka dowladood ee dunida ee ku hubaysan hubka nuclear-ka ayaa si wada jiro hubkooda nuclear-ka ugu kharash gareeyay lacag ka badan 91.4 bilyan oo dollar sanadkii 2023 maadaama ay hubkooda nuclear-ka ku sii wadaan casriyeyn iyo badinta tirada madaxyada nuclear-ka ay haystaan. sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray ururka ICAN oo ah urur caalami ah oo u ololeeya baabi'inta hubka nuclear-ka. Alicia Sanders oo ka tirsan ururka ICAN ayaa sheegtay in lacaga badan lagu kharash gareeyay kororka hubka nuclear-ka iyadoo haddana dowladaha hubka nuclear-ka haysta ay isku raacsan yihiin in dagaal nuclear aan weligiis lagu guulaysan doonin. warbixintu waxay muujinaysaa in dalalka ku hubaysan nuclear-ka ay 10.7 bilyan oo dheeraad ah oo dollarka Mareykanka ku bixiyeen hubka nuclear-ka sanadkii 2023 oo kaliya marka la barbar dhigo sanadkii ka soo horeeyay ee 2022 iyadoo Mareykanku uu 80% ka yahay korarkaas. ururka ICAN oo ah urur caalami ah oo u ololeeya baabi'inta hubka nuclear-ka wuxuu sheegay in Mareykanku uu ku kharash gareeyay hubkiisa nuclear-ka lacag ka badan 51.5 bilyan oo dollar oo ah in ka badan dhammaan wadamada kale ee ku hubaysan hubkan. warbixinta ururka ICAN waxay sheegtay in wadanka labaad ee lacagta ugu badan ku kharash gareeyay nuclear-ka uu yahay Shiinaha wuxuuna ku kharash gareeyay lacag ka badan 11.8 bilyan oo dollarka Mareykanka. dalka Ruushka ayaana kaalinta saddexaad ka galay kharash gareynta nuclear-ka wuxuuna geliyay lacag ka badan 8.3 bilyan oo dollarka Mareykanka. warbixintu waxay xustay in kharashka boqortooyada Ingiriisku gelisay nuclear-ka uu aad u kordhay sanadkii labaad oo isku xigta 2023-2024 iyadoo 17% kor u qaaday ilaa 8.1 bilyan oo dollarka Mareykanka iyadoo wax yar ka dambaysa kharashka Ruushka uu geliyay hubkiisa nuclear-ka. wadarta guud ee shanta quwadood ee kale ee nuclear-ka haysta oo kala ah Faransiiska, India, Israa'iil, Bakistaan iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa sanadkii 2023 gaaray 11.6 bilyan oo dollarka Mareykanka. qorayaasha warbixinta ayaa sheegaya in shirkadaha ku lugta leh soo saarista hubka nuclear-ka ay heleen qandaraasyo cusub oo ku kacaya 7.9 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadkii 2023 aynu ka soo gudubnay. falanqaynta xogta la ururiyay 5 sano ee la soo dhaafay ayaa muujinaysa in dowladaha ku hubaysan hubka nuclear-ka ay si wada jira u kharash gareeyeen 387 bilyan oo dollarka Mareykanka. Sanders oo dhinaca daraasaadka u qaabilsan ururka ICAN oo arrintan ka faaloonaysa waxay tiri sidan: waxaa jiray isbedel muuqda oo kor u kaca oo ah xaddiga lacagta loo qoondeeyay horumarinta hubkan ugu baabi'inta badan bini'aadamka 5 sano ee la soo dhaafay kaasoo hadda sii kordhaya. dhammaan lacagtani ma hagaajinayso ammaanka caalamiga. runtii waxay hanjabaad ku tahay dadka meel kastoo caalamka ay kaga nool yihiin. khubarada ka shaqeeya xakamaynta hubka nuclear-ka ayaa la wadaaga walaacooda dunida waxayna ka digayaan sanadkan halista tartanka cusub ee hubka iyadoo quwadaha nuclear-ka haysta ay dhisayaan hubkooda iyagoo ka soo horjeeda ama aan fulinayn heshiiska ku saabsanaa inaan la faafin hubka nuclear-ka kaasoo ujeedkiisu ahaa in laga hortago faafitaanka hubka nuclear-ka iyo farsamadiisaba. warbixin lagu daabacay majalada Foreign Policy ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu aad uga walaacsan yahay hubka nuclear-ka ee Shiinaha ee sida degdega u kordhaya sida laga soo xigtay qiyaasaha Pentagon-ka Mareykanka. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa gadaal ka riixaya howlgalka xoojinta nuclear-ka waxayna warbixintu sheegtay Shiinuhu inuu ku socdo wadadii uu ku gaari lahaa 1,000 madax oo nuclear-ka ah laga soo bilaabo 2000 ilaa iyo 2030. warbixinu sanadkii 2023 soo saaray guddiga dhinaca istiraatiijiyadda ugu qaabilsan Koongareeska Mareykanka ayaa sheegayay in ballaarinta nuclear-ka Shiinuhu ay tahay inay soo dedejiso siyaasad Mareykanku uu dib ugu qiimeynayo
cabirkiisa saxda ah ee xooggiisa nukliyarka. guddiga koongareeska dhinaca istiraatiijiyadda ayaa sidoo kale muujiyey siday uga xun yihiin habdhaqanka gardarrada ee sii kordhaya ee ruushka oo ay ku jiraan kobaca aan horey loo arag ee ciidamadiisa iyo madaxyada nukliyarka kala duwan iyo ballaarinta nidaamkeeda nukliyarka ee masraxa ku salaysan ee duulaanka Ukraine ee 2014 iyo duulaankii xigay ee Febraayo 2022. tirada madaxyada nukliyarka ayaa aad u kordhay adduunka oo dhan sida lagu ogaaday cilmi baaris ay samaysay Stockholm International Peace Research Institute. hay'adda cilmi baarista ee Sweden ayaa usbuucan qayladhaan ka soo saartay kororka madaxyada nukliyarka. bayaan ay soo saartay ayaa u qoraa sidan: dunidu waxay ku jirtaa mid ka mid ah xilliyadii ugu khatarta badnaa taariikhda bini'aadanka, iyadoo quwadaha caalamku ay kor u qaadayaan hubkooda atomikada iyo hubka nukliyarka, iyadoo uu yar yahay doorka caalamiga ee arrintan lagu xakameynayo ama lagu hor istaagayo. dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xakameynayo hubka nukliyarka ayaa waxaa ku dhacay dib u dhac weyn, iyadoo xiriirka juqraafiyadeed uu xakameynayo. macadka cilmi baarista nabadda ee Stockholm oo ah koox la socota ammaanka iyo xakameynta hubka adduunka ayaa ku sheegtay warbixinteeda sanadlaha 9 waddan ee hubka nukliyarka haysta: Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha, Hindiya, Bakistaan, Kuuriyada Waqooyi, Israa'iil waxay sii wadaan inay casriyeeyaan hubkooda nukliyarka iyo dhowr nooc oo cusub oo hubka nukliyarka ah, sida lagu ogaaday dhaqdhaqaaqyo la sameeyey sanadkii 2023 iyo sanadkan 2024. warbixin gaar ah oo ololaha caalamiga ee baabi'inta hubka nukliyarka ee ICAN waxay ku sheegtay in 9 dowladood hubka nukliyarka ay ku kharash gareeyeen in ka badan 9.4 bilyan. macadka ICAN oo arrintan ka sii hadlaya waxa uu yidhi sidan: oo wax laga xumaado inaan sii aragno korarka sanadba sanadka ka dambeeya ee tirada madaxyada nukliyarka ee shaqaynaya ee dunida. Ruushka iyo Mareykanku waxay leeyihiin ku dhawaad 90% dhammaan hubka nukliyarka, sida uu sheegay macadka nabadda ee Stockholm. baaxadda kaydadkooda military dalalkan waxay u muuqdaan kuwo xasiloon, inkasta oo Ruushka lagu qiyaasayay inuu geeyo ku dhawaad 36 madax oo hubka nukliyarka oo kan dagaalka. Aasiya, Hindiya, Bakistaan iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa dhammaantood ku raad jooga howlgallo ay ku kordhinayaan awoodooda nukliyarka iyo dadaallo kale ay ku geynayaan madaxyo badan oo gantaalada balaastiga ah goobo cusub. macadka arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi: Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, UK iyo Shiinaha ayaa horey u lahaa awooddaas, taas oo awood u siinaysa korarka suurtagalka ah in si degdeg ah loo kordhiyo madaxyada dagaalka, iyo sidoo kale suurtagalnimada in wadamada hubka nukliyarka haysta ay halis geliyaan burburinta bartilmaameedyo aad u badan. markii ugu horeysay Shiinaha ayaa la rumaysan yahay inay leeyihiin qaar ka mid ah madaxyada dagaalka oo heegan sare ku jira xilligan. Shiinaha ayaa kordhiyay hubkiisa nukliyarka wuxuuna gaarsiiyey 500 oo madax bishii Janaayo, halka uu 210 madax nukliyar haystay sanadkii hore. Shiinaha ayaa si degdeg ah u ballaarinaya awoodiisa nukliyarka in ka dhaqso badan waddan kasta, sida ay warbixintu sheegtay.